maalinimo axada barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii soo dhacay intaynu kala maqnayn. haddaba marka ugu horeysa waxaynu ku bilaabaynaa Mareykanka ayaa wada qorshe uu saldhigyadiisa militariga xoogooda uu ku geynayo Israa'iil iyadoo laga rarayo wadamada khaliijka gaar ahaan halka ay hadda saldhigyadu ku yaalaan ee ugu badan oo ah wadamada Kuwait iyo Bahrain iyo Imaaraadka Sacuudiga iyo meelaha Qatar. intaba wuxuu doonayaa inuu markaa ka soo raro saldhigyadiisa oo uu bariga dhexe ku yeesho kaliya saldhigyo uu ku leeyahay gudaha Israa'iil. haddaba maxaa keenay Mareykanka inuu ka cararo khaliijka? laba arrinba dadka wax falanqaynaya way sheegayaan. waxay leeyihiin kow, dowladihii saldhigyadu ku yaaleen oo cabaad afka furtay, warniyow saldhigyadaada naga qaado. awal saldhigyadu maxay ku soo degeen? waan idin ilaalinayaa, inta aan idinla joogo hal madfac oo idinku soo dhici kara male, alaab waxaan idin keenayaa saas u qabanaysa wax walba dhab dhab dhab. carabtii waaba iska ogolaadeen, qaaraaba bixin jiray biilka ciidamada Mareykanka iyo wax walba. marka waxaa leeyahay hadda waxaa la isla soo taabtay derbigii. saldhig lagaaga dhiso dalkaagu inuusan ku difaaci karin ama inuu dhibaato kuu keeno oo tugta lagaa geliyo maahan. carabtii marka waxay leeyihiin hadda saan xal ma ah, saldhigga inuuna difaaca u keenay inuu dhibaato noo keeno ma rabin. midda kalena Mareykanka laftirkiisa ma dhagaysteen carabtaan naga guuriyo suu u dagay waaye, wuxuu u baqay lafiis. sababtoo ah Iiraan way u sahlan tahay inay si fudud ku duqayso wadamada carabta, way u dhow yihiin. Israa'iil xoogaa masaafay u jirtaan, masaafo dheer ayay Israa'iil waxay u jirtaa Iiraan. marka way ku adkaanaysaa xoogaa inuu iska difaaco, waa suuragal xoogaa maaragtay way dheer tahay. laakiin inta hadduu soo ridaba wuu la yaalaa Kuwait, Bahrain, Imaaraad, kulli saasay hoosta uga jiraan. marka meesha inaan marnaba Mareykan iyo Iiraan kala dhammaan doonin oo ay sidaa nagta isugu hayn doonaan ayuu Mareykanku garowsaday. marka Mareykanku inuu markaa halkaas saldhigyadiisa u raro. qaar marka waxay ku doodayaan, waxay leeyihiin ma wada rari doono, meelaha muhiimka u raran doonaa, laakiin qaar wuu kusii ilaalin doonaa carabtan meeshu inuu la sii joogo. haddaba marka wararkaas kala duwana marka laga hayaa. haddaba marka aan idin tuso warkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray. wargeyska la yiraahdo Walla ee ka soo baxa Israa'iil ayaa saakay wuxuu qoray warbixin uu leeyahay ciidamada Mareykanku waxay daraasad xoog leh ku hayaan sidii saldhigyo military looga sameyn lahaa cusub gudaha Israa'iil. haddaba Walla waxay leedahay jiradu ciidanka Mareykanku daraasadaas ayay ku hayaan saldhigga militariga ee laga sameynayo Israa'iil kadib markii dib u eegis Mareykanka uu ku sameeyay bariga dhexe xaaladeeda. macnaha saldhigyadiisii kale bariga dhexe iyo wixii markuu dib u eegis ku sameeyay ayuu wuxuu yiri halkan ayaad ku badbaadaysaa. xaqiiqatan waxaa leeyahay Iiraan hadday rabto Israa'iil xataa ugama baxsanayn, inkastoo masaafadu ay ku dheer tahay oo gantaaluhu meelo dheer ay soo marayaan, dhowr dal ay soo kor marayaan. xoogaa culayskaas inuu ka hortago waa suuragal oo xoogaa qafiifiyo, laakiin inta meel la soo dul maraa male. Iiraan uu ka soo dhacaa Bahrain ku yaala, meeshay rabto wadan kale maba kor maraysaba. marka halkaas uu maraa. dhanka kale taliyaha taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka, generaalka hogaaminaya ciidanka Iiraan dagaalka kula jira, ayaa wuxuu kormeer aan horey loo sii shaacin ujeedadiisa ku tagay Israa'iil. kormeerka waxay daarnaa sida la leeyahay laba arrin: arrinta Iiraan iyo arrinta Lubnaan, oo Israa'iil lagala hadlayay sida ay Lubnaan fursad u siin karto ciidamada Lubnaan si Xisbullah jaanis hubka looga dhigo loo helo iyo sheekooyinkaas. haddaba marka aan tuso sheekadan iyadana waxaa leeyahay kulan aan hore loo sii sheegin ayaa wuxuu dhexmaray abaanduulaha ciidanka Israa'iil iyo taliyaha taliska dhexe Mareykanka ee CENTCOM.
waxaana diiradda lagu saarayay arrimaha iiraan sida ay qortay jariirada la yidhaahdo Jerusalem Post. haddaba kulankan ayaa wuxuu dhex maray abaanduulaha ciidanka Israa'iil iyo taliyaha taliska dhexe ee Mareykanka, waxaana uu ahaa kulan aan hore loo sii shaacinin. ilaa haddana tafaasiil badan wixii aasaaska u ahaa lagama hadlin marka laga reebo in arrimaha iiraan laga wada hadlay. waxaa la filayay inuu markaa booqdo taliyaha taliska dhexe ciidamada Mareykanka gobolada waqooyiga halkaas oo ah dhanka Lubnaan, laakiin waxaa la sheegay in safarkiisa uu kansalay kadib markii xiisadda iiraan ay mar kale dib u soo cusboonaatay oo Mareykanka iyo iiraan dagaal uu ka dhex qarxay. marka ninka isaguna booqashadaas ayuu halkaa ku tegay, marka tafaasiil badanna waxba lagama hayo. dhanka kale waxaa telefoonka ku wada hadlay saacadihii lasoo dhaafay gudoomiyaha baarlamanka iiraan ninka la yiraahdo Mohammed Ghalibaf iyo gudoomiyaha baarlamanka Lubnaan Nabiih Berri ninka la yiraahdo. Nabiih Berri waa kaabaha Xisbullah, macnaha ninka siyaasad ahaanta baarlamanka ugu jira oo si difaaca oo howlahaas dowladeeyo waaye. Xisbullahida ugu jira baarlamanka, ninka gudoomiyaha baarlamanka waaye. ninkana gudoomiyaha baarlamaanka waxay ka wada arisanayeen marka wararkii soo kordhay xaalad dhawaan. waxaa qandaraas soo qaatay dowladda Lubnaan inay hubka ka dhigto Xisbullah. marka Ghalibaf wuxuu yidhi istaji nimankan wax hubay dhigi karaan male, Xisbullahina wax huboo laga dhigi karo ma jirto. Xisbullahidaaba ka xoog badan dowladda, way qabsanaysaa maalin iyo 2 maalmood hadday dareeraan waa la soo qabanaa. waxa Israa'iil lala hor joogo oo nagta lagu hayo nimankan ma iska celi karaan ma yawdhay. marka nimankan marka Iiraan waxay leedahay ha isku wareerinin, nimankan ayaga is wareerinayo maahane Israa'iil meel ay u socoto male. nimankanna muqaawama leeyahay, al muqaawama ayaga marka hawsha iska leh inay dalkooda difaacdaan. nimankan dal iyo waxba shaqo kuma lahan. Mareykanka raali geliya Israa'iil hayda ka saaro waxaas ka dhaadhacsan. Mareykan ma Israa'iil ka saari kara meesha ma jirteen. Israa'iil xabadaadi ka saari karta. marka labada oday marka arrintaas ay ka wada hadleen iskaashigooda inay sii wadaan oo xoogooda maartay mideeyaan. haddaba markaan idin tuso Ghalibaf gudoomiyaha baarlamanka iyo Berri ninka la yiraahdo gudoomiyaha baarlamanka isagana Lubnaan ka ah ayaa waxay sheegeen hadafkoodu inuu yahay in la dhameeyo dagaalka Lubnaan oo qaxootiguna dadkii barakacay ay dib ugu laabtaan guryahooda. gudoomiyaha baarlamanka Iiraan Mohammed Baqir Ghalibaf ayaa u sheegay dhigiisa Lubnaan Nabiih Berri in dagaalka la dhameeyo oo markaasi qarannimada Lubnaan la ilaaliyo ay asaas u tahay qodobada isfahamka ee dhex maray Washington iyo Tehran. marka wuxuu leeyahay annaga Tehran in la dhameeyo dagaalka Lubnaan oo la soo afjaro Israa'iil ay ka baxdo halkaas qodobadeena aasaaska heshiiska aan la galnay Mareykankan ka dhigin. haddii taa la sameyn waayo de heshiis ma jiro dhah. marka waxba walwal ha qabanina, cid maartay wax idinka qaadi kartaa ma jirto. qodobka kale ee barnaamijka aynu ku soo qaadanaynaa wuxuu yahay Sacuudiga goordhow waxay sheegeen arrin murugo leh. diyaarad ay leeyihiin ayay sheegeen inay dhacday saaki aroortii saacadu markay ahayd 6 subaxnimo xilliga Saudi Arabia. diyaaraddu waxay ahayd diyaarad helicopter, waxay iska lahayd shirkadda shidaalka waddanka Sacuudiga ee la yiraahdo Aramco. khubaro saarnayd 14 qof oo u badan Sacuudiga leeyahay ayaa halkaa ku dhintay, diyaaradda ayaa ku dhintay. marka haddaba aan aragno warkii ugu dambeeyay oo goordhow soo baxay wakaaladda wararka ee Anadolu waxay leedahay 14 qof oo Sacuudiyaan ah ayaa ku dhintay diyaarad helicopter oo ay lahayd shirkadda la yiraahdo Aramco oo shidaalka qaabilsan Sacuudiga. diyaaradda waxay ku dhacday dhanka bariga boqortooyada Saudi Arabia. 14 Sacuudiyaan ah ayaa ku dhintay Axadda
kadib markii ay burburtay diyaaradoodii helicopterka ahayd oo ay lahayd